Assalaamu calaykum. Dhowaan waxaynu soo deynay barnaamij aynu ka diyaarinay dayaxa tegitaankiisa oo aynu ku soo bandhignay weydiinahayd ma la tegay dayaxa mise lama tegine waa been abuur. Ugu dambeyntii markii aynu xogihii rogrognayna waxa aynu kala soo baxnay jawaab ah in aynan hayn wax aynu si rasmi ah ugu xaqiijinayno in la tegay dayaxa, sidoo kalena aynan hayn waxaynu si rasmi ah ugu dafirayno in la tegay dayaxa. sida awgeed aynu ka soo qaadno sida qisooyinka iyo wararka loo yaqaano Israa'iiliyaadka ee uu nabigeenu sallallahu calayhi wasallam inagu yidhi haddii aad diinteenna ka heshaan wax xaqiijinaya ka qaata oo rumaysta, haddii aad diinteenna ka heshaan wax dafirayana diida oo laala, haddii aad labadaba ka weydaanna hana rumaysanina hana beenaysanina ee xog iyo macluumaad ahaan u qaata si aydinaan wax xaqa oo jira u dafirin oo u diidin maadaama ay Yuhuudi sheegtay, ama been iyo waxba kama jiraan aydinaan u rumaysan oo xaq ugu arag keliya macluumaad ahaan u qaata oo hana rumaysanina hana beenaysanina. innaguna fariintii aynu uga dan lahayn barnaamijkaasi sida tan ayay ahayd, balse waxaa barnaamijka faallooyinkiisii ka muuqatay inaanay badi asxaabtu ku qancin xogihii oo ay iska soo taageen, waxaana ay ka fursan weyday inaynu barnaamij labaad ka soo qaadanno. ugu horrayn, qofka aadamaha ahi way adag tahay sida waxa uu muddada dheer soo aaminsanaa ee runta iyo xaqiiqada u arkayay haddii loo sheego inay been tahay ama aanay dhab ahayn ama ay waxba kama jiraan tahay ay u maraan ee uu rumaystaa, oo waa dabciga aadamaha ku abuuran. mar kasta oo qofku uu da ahaan sii weynaadana way adag tahay waxa uu aaminsanaa sida looga furfuraa. maantadan haddii aad awowga ama ayeyda wax iska khuraafaada ama diinta baalmarsan oo ay aabayaashood ka soo gaadheen aad ku tidhaahdo waxaasi waa qalad, inay kaa qaataan oo kaa rumaystaan ka sugi maysid. xataa adiga oo aayado qur'aan iyo xadiisyo nebi u keenaya ayay kula soo horjoogsanayaan. aabbahay ayaa sidaas odhan jiray, ama wadaad hebel oo kuwii geela lasoo dhaco xalaalayn jiray ah. war huuhaaya oo mar u sheegay ay ku dhegayaan oo odhanayaan sheekh hebel oo urkubaalle iyo tufku khayra ahaa ayaa sidan yidhi amaana rikin ka soo gaadhay oo loo noqon maayo, oo yaryarkiinna diintii weligeedba lagu soo dhaqmayay diidani. ila dhaafa warka, waa waayeelkeennan haddaynala nool inta aynan cid kaleba gaadhin. sidaa awgeed ayay Quraysh dhalinteediina nabiga u raacday, duqaydeedii iyo madaxyaweynteedii intii ugu badnaydna u diiday inay raacdo oo ula dagaalantay. sidaa awgeed ayaa mar kasta adduunka isbeddelkiisa loogu xidhaa dhalinta oo loo yidhaahdaa dhalinta ayaa wax beddelaysa ama dhalinta ayaa isbeddel keenta. waxaan qodobkan uga soconnaa qofka nusqarni ama 40 sano ama 30 ama ugu yaraan 20 sano soo maqlayay dayaxa waa la tegay ee aan weli maqal lama tegin, way ku yara adkaanaysaa inuu aqbalo oo qaato oo wuxuu kaga doodi karo uu keenayaa. sida awgeed waxaa muhiima qofku inuu noqdo mid aqbalaad leh oo la tallaabsada mahmaadii Soomaaliyeed ee ahayd ama arrinkeena how ama aqbalkeena how, yacni ama arrin xaqiiqo ah oo dhab ah oo lagu qanco keen oo ku dheganow, ama marka lagu keeno mid la qaado oo aqbalaad yeelo oo xagun labada daarood ku biir. haysxankaa kubine asxaabta markaas ugu dhegan in dayaxa la tegay maadaama ay muddo dheer soo maqlayeen intaasi ku filan. dhanka kale waxaa mar walba la arkaa baraha bulshada qaar taagan oo ama Maraykan ha ahaadeen ama dal kale ha ahaadeene ku doodaya inay dayaxa udheelo ka dhisi doonaan, in ay u dalxiis tegi doonaan iyo arrimo kale oo la mida. taas macnaheedu ma aha in dayaxa la tegay. tusaale aynu qodobkaas ku soo dhadhaweynayno haddii aynu keennana imse jeer ayaad meelahaas commentiska iyo faallooyinka bulshada ku aragtaan qof dhallinyaro ah oo leh ilaa 5 Soomaaliyeed isu yimaadaan dad noqon mayno ama hergaadhi mayno, ama leh oo ku doodaya markan Soomaalida isu keeno ee 5 mideeyo ayaan horumarinayaa dalka, amaba leh intaan 5 Soomaaliyeed isu keeno ayaan shidaalka soo saaraya oo dadka dhisaya oo waxaan kala qabanaya. in badan dabcan taas macnaheedu ma aha in ilaa 5 Soomaaliyeed isu yimaadaan aynan wax qabsan karayn oo dad jira noqonayn. macnaheeduna ma aha in qofkaas dhalintaahi uu 5 isu keenayo, ee waa sheegasho iyo yididiilo iyo naalood uu qofku rajaynayo inuu sameeyo. cid ku odhan karta isuma keenaysidna ma jirto, oo mustaqbalka kama faalloon karno. sida awgeed ayay dhalinta inta ugu badan qodobkaas ugu dhadhabaan. waxaan uga jeedaa qodobkan in aan aniga oo aadan ahi idhaahdo waxaan tegayaa dayaxa iyo aqal Soomaali buulcawsa ayaan ka dhisayaa. macnaheedu maaha in hore loo tegay ama la tegayba, oo Robert Mugabe waa kii lahaa annagu haddaanu nahay Afrikaan qorraxda ayaanu tegaynaa. markii lagu yidhi way kulushahay oo way idin gubaysaana uu yidhi war habeen ayaanu tegaynaa.
taas macnaheedu ma aha in robot uu hadalkan ka soo xiganayay dad iyagu tegay qorraxda ama uu ku dhaadanayay oo isku hubay inuu qorraxda tegayo. qodobkaasna waxaan u soo jeedinayaa asxaabta u aaminsan in dayaxa la tegay keliya maadaama oo ay arkeen qaar la hudheelo ayaanu ka dhisaynaaba oo waanu dalxiis tegaynaa. dhanka qodobka dayaxa daaya Maaris ayaa laga faalloonayaa oo Maaris ayaa la tegayaa oo xogaha daaranaya sida uu u samaysan yahay iyo warkiisaba la hayaa. asxaabtaasna ma dheera sida la isu fahmayaa oo keliya haddii ay hal qodob fahmaan way fahmayaan Maaris sababta looga faallooday xogihiisa, way fahmayaan sababta lagu ogaaday dayaxu inaanu iftiinka samaysan ee uu qorraxda ka soo qaato. jawaabta oo koobnina waxay ku eg tahay hal su'aal. dhammaanteen gaal iyo islaamba waynu isku raacsannahay inaanay qorraxda cidi tegi karin, cidina aanay hore u tegin, cidina aanay tegi doonin, haba yaraato cid ku fikiraysa xataa inay tagtaana aanay jirin. xogaha qorraxda intoodii badnayd waynu haynaa, inta ay inoo jirto waynu garanaynaa, heerkulkeeda iyo sida uu uga soo baxo iyo curiyayaasha ay ka kooban tahay intaba waynu garanaynaa. su-aashu markaa waxay tahay maxaynu ku ogaanay arrimahaasoo dhan? ma inta aynu dhulka fadhiisannay oo qorraxda kor u eegnay ayaynu wixii niyaddeenna ku soo dhacaba nidhi oo ku hadaaqnay oo iska qorqornay? ma jiman ayaa inala shaqeeya oo inoo soo wariyey xogaha cadceedda? jawaabta aynu helayno ee aynan isku diidanayni waxa ay ku siman tahay in xogahan oo dhan aynu ku ogaanay teleskoob, agabka lagu eego meerayaasha waaweyn iyo ifka sare ee xogahooda lagu daraaseeyo xilliga la xaqiijinayay in dhulku uu wareegayo oo aanu ahayn xudunta adduunka ee ay qorraxdu tahay xudunta adduunku. waxay ahayd ku dhowaad xilli 4 qarni ka hor ah markii uu Galiileo caddaynayay inaanu dhulku ahayn xudunta caalamka. xilligaasna aaladahan iyo dayax gacmeedyadani ma ay jirin. muxuu ku ogaaday Galiileo? ma waxyi ayaa ku soo degay? maya, ee waxa uu adeegsanayay teleskoob. intiina aqoonta hawada sare iyo juqraafiga wax ka taqaanaana waad fahmaysaa macnaha hadalkan markaad maqashaan magaca teleskoob. iyada oo aan dayax gacmeed iyo agab kale la haysanna meerayaasha Maaris iyo kuwa kale ee maanta la leeyahay waa la tegayaa, iyo xataa cadceedda oo waxba ka sii hawl badan waa laga warhayay oo waa la yaqaanay xogahooda oo waa la hayay. halkaasna waxaan filayaa inay ku qancayaan asxaabtii ku doodayay Maaris ayaaba laga warhayaa oo la doonayaa in la tago oo waa la dhaafay dayaxa. oo waxaynu asxaabta hawraar ugu soo koobaynaa in dayax gacmeedyada hortoodba la hayay Maaris iyo Jupiter iyo Venus iyo qorraxdaba xogahooda oo la ogaa inaynu nahay bah cadceedeed ama solar system ay qorraxdu u tahay xudun, dhulka iyo meerayaasha kalena ay ku wareegayaan iyada. haddii aad la yaaban tahay haddii aan dayaxa la tegin sidee lagu ogaaday inuu iftiinka ka soo qaato cadceeddana, waxa lagu ogaaday sida lagu ogaaday curiyayaasha ay qorraxdu ka kooban tahay iyada oo aan la tegin. dabcan waxaan la yaabay asxaabta qaar ku qanacsanaa in wakaaladda NASA ee Mareykanka uu la shaqeeyo jin. iyagana waxaynu leenahay maskaxdaadu yay noqon maqal lagula leeyahay. qodobka isfahan iyo isafgarasho inoogu filanna waxaynu ku soo qaadanaynaa tusaale aynu ku soo dhadhaweynayno. nin ayaa beri reer gabadh ka doontay. kadib markii la isu geed fadhiistay waxaa lagu yidhi 3 shardi ayaa lagugu xidhayaa oo hal xidhaalayaal ah. haddii aad furto hal xidhaalayaasha 3 ah inantaa waad leedahay. muhimna inooma aha labada kale ee kaynoo muhimka ah haddii aynu ka soo qaadanno. waxa lagu yidhi waxaad sheegaysaa tirada xidigaha. ninkii wuu fekeray, garaadka ayuu ruxruxay, tiri isyidhi ee wayskaga dhex daatan xidigihii. wuxuu sameeyo ayuu garan waayey, balse markii dambe waxa uu helay samatabax uu hal xidhaalihii iskaga furay oo uu ku baxsaday. markii la isu soo noqday ee uu labadii kale furay ee qodobkii xidiguhu uu hadhsanaa ayuu yidhi iminka tiradii ayaana saxayn, balse haddii aynu dhadhaweyno sidii uu yidhi waxay ahayd tirada xidigaha waan soo tiro koobay oo waxa weeyaan 36,475 xidigood oo aanay xabadi dheerayn xabadina aanay ka dhinnayn. waxaa la weydiiyey su-aasha inteena badan niyaddooda kusoo degdegaysa ee ah maxaad ku caddaynaysaa inay xidiguhu yihiin 36,475 xidigood oo aanay xidigi dheerayn xidigina aanay ka dhinnayn? waxa uu si degan ugu jawaabay dee orda oo idinkuba soo tiriya ilan tirin ayuunbaa idinka xigta hal xidhaalahaasi sidaas ayuu ku furmay oo cidina ma awoodo inay tiriso xidigaha. isaguna ma hayo wuxuu ku xaqiijinayo xidigaha tiradoodu inay tahay 36,475 xidigood. dadkii kale oo dhammina ma hayaan waxay ku burinayaan oo ku beeninayaan inay tirada xidiguhu tahay 36,475 oo aanay xabadi dheereen xabadina aanay ka dhinnayn, sida awgeedna aan la dafiri karin. sidaasaana ninkii inantii lagu siiyey. waxaan uga socdaa qodobkan Mareykan waxa uu isbedayaa inuu haysto tiknoolajiyadda adduunka ugu sarreysa waa sida uu sheegto
dayax ayaad sheegaysaa ee laga yaabaa marka iminka uu cudurkani ka baxana inuu yidhaahdo qorraxda ayaan tegey oo soo arkay intii ummaddu cudurkan ku mashquulsanayd. haddii aynu ku nidhaahno waa beentaa ee ma aadan teginna waxayna hortaalla jawaab ah dee horta idinkuba taga oo soo eega bal in la tegi karo iyo in kale, yacni awood sheegasho tiknoolajiyadeed weeyaan oo uu ku tibaaxayo in isaga cid dhankaas kaga sarraysa aanay jirin, maadaama uu qodobkaas isku hubana inta uu adduunka sheegashooyin u sheegan karo, ama dayax la tegay ha ahaato, ama maaris loo safrayo ha ahaato, ama qorraxda in la tagaba ha ahaato wuu sheeganayaa maadaama aanay jirin cid ku odhanaysa waa beenta. sheegashaduna dabcan lacag kuma joogto, haddii ay jirtana aanay ciddaasi hayn waxay ku caddaynayso beeninteedaas. ugu dambayntii weli waxaan mar labaad ku celinayaa in tegitaanka dayaxa aynu u aragno sida qisooyinka israa'iiliyaadka ee aynaan rumaysan sidoo kalena aynaan beenaysan, maadaama aynaan hayn wax rasmiya oo aynu ku rumaysanno sidoo kalena aynaan hayn wax rasmiya oo aynu ku beeninno ee xog iyo macluumaad ahaan aynu u qaadanno. والسلام عليكم